Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Nasri Channel 999. Waxaan doonayaa maanta inaan idiin sheego oo aan halkan idinku soo gudbiyo qaabka loo xarayo lotteriga. Barnaamijkan oo ah barnaamijka uu ku bixiyo dalka Mareykanka fiisayaasha ugu badan, isagoo markaasi fursad siinaya dadyoga raba inay ku noolaadaan dalka Mareykanka sidoo kale ay ka shaqeystaan oo fursadaha badan ee uu dalkaasi qani ku yahay ay ka faa'iideystaan. Waxaan arkaa barnaamijyo badan iyo muuqaalo badan oo baraha bulshada la soo geliyo iyadoo markaasi la leeyahay waxaan u kordhinaynaa fursadda aad ku helayso lotteriga. Runtii waxaan leeyahay arrimahaas oo dhan xalaaliyo wax ka jira ma jiraan. Marka uu qofku xareysto lotteriga uu buuxiyo foomka la siinayo sidoo kale sawirkana uu hagaajiyo. Caqabada ugu weyn ee dadka ka hor timaada waa sawirka weey. Haddii sawirka sida la doonayo muuqaalkeenana aan ku soo bandhigi doono uu noqdo, runtii waxaad la siman tahay dadyoga kale oo dhan. Yaan lagugu dhicin amba yaan lagugu baaran barnaamijka lotteriga iyadoo ay dadka qaar leeyihiin waxaan u kordhinaynaa fursadda aad ku heli karto lotteriga. Cid fursad kordhin kartaa ma jirtee, waxaa loo baahan yahay kaliya systemka barnaamijka inaad raacdo oo sawiraantana aad iska hagaajiso sidoo kale aad geliso xog sax ah oo hadhow talo haddii wax kaaga soo noqdaan oo lagu doorto aad aad ka jawaabi karto. Sidoo kale waxaa jira dadyo fara badan oo isticmaala linkiga ay dowladda Mareykanku amba ciwaanka dowladda Mareykanka oo markaasi kuu soo diraya emailo iyadoo taasina ay khatar tahay oo dadyo badan lagaga qaaday lacag. Marka aad muuqaalkan dhamaysato aad buuxdo xogta ku jirta, waxaan rajaynayaa inaad ka cilbaxdo cid ku tidhaahdo waxaan kuu buuxinayaa lotteriga adiga oo gurigaaga jooga. ayaad buuxsan kartaa. Waxaan diyaar u ahay inaan cid walba caawiyo si lacag la'aan ah. Waxaad igala soo xiriiri kartaa WhatsApp-ka oo isku xusan. Marka aad xareysanaysid barnaamijkan, shardi uma aha inaad haysato baasaboor, laakiinse waxaa shardi ah haddii lagu doorto inaad samaysato intaan safaaradda lagaaga yeedhin baasaboor. Haddii aad haysato shahaado, waxaa muhiim ah inay iswaafaqsan yihiin macluumaadka ku qoran baasaboorkaaga iyo shahaadadu. waxa ugu muhiimsan barnaamijkan waxa weeyaan waa sawirka, qaabka aad u galayso iyo siduu yahay. Dadka inta ugu badan ciladaha iyo caqabadaha ka hor yimaada sababa in la dooran waayo waxaa ka mid ah sawirka, amba waxaynu odhan karnaa waxa ugu weyn sawirka. Sawirku waxa loo baahan yahay inuu background-kiisu noqdo cadaan, sida aad uga jeedaan sawirka idinka muuqdo shaashada moobilkaaga amba kombiyuutarkaaga hadba aad ka daawanayso. waxaa loo baahan yahay inuu noqdo 600 oo pixel lagu dhuftay 600 oo pixels. hadduu sidaa noqdo oo barnaamijyada iyo macluumaadka aan idiin soo sheegay aad raacdaan, cid kaa xigtaa ma jirto, nasiibkaaga uun ayaad qaadaysaa. sidoo kale waxaa muhiim ah inaad sawirkaaga ka ilaaliso inaad ku samayso wax Photoshop ah. Haddii markii hore aad sawirka ku gashay meel midab leh oo background-ku midab leeyahay oo Photoshop-ka lagaga dhigo cadaan, taasi waxay keenaysaa in aad ku guuldaraysato barnaamijkan. Safxadan aad arkaysaa waa website-ka rasmiga ah ee dowladda Mareykanku ay leedahay laga xareysto lotteriga. Marka aad gasho safxadan halka ugu horeysa waxa kuu soo baxaysa 3 doorasho. Ta ugu horeysa waxa weeyaan haddii aad rabto macluumaad ku saabsan lotteriga. Ta labaadina waxay noqonaysaa oo waxa weeye sawiro tusaale lagu siinayo si aad sawirka ugu qaldamin. halkaynu soconaa waa meesha saddexaad ee aad ku bixinayso macluumaadkaaga iyo wixii lagaga baahan yahay. inta aadan gelin barnaamijka amba aan lagu siinin meelaha bambanaan ee aad ku bixinaysid macluumaadkaaga, haddii aad haysato baasaboor soo qaado, soo dhaweyso si aad ugu qorto macluumaadka ku saabsan. sidoo kale haddii aad shahaado leedahayna iyadana soo dhaweyso si aad macluumaadka aad ku qorayso halkan iyo macluumaadka ku qoran dokumentiga waa isku waafaqaan. marka aad gasho website-ka waxaa kuu soo baxaya xarfahan yaryar oo loo baahan yahay inaad halkaasi ku buuxiso. haddii xuruuftan aad fahmi weydo waxaad ka bedeli kartaa bartaas yar ee halkaa ka muuqata ee aan iminka ku hayo mouse-ka. marka laga bedelo ee aad ku qorto xarfuhu say yihiin ayaad u qoraysaa. hadday capital yihiin, xarfo waaweyn hadday yihiin, xarfo yaryar small letters hadday yihiin oo xarfo yaryar yihiin sida yihiin baad u qoraysaa. intaa kadib waxaa lagu siinayaa foomka aad ku bixinayso macluumaadkaaga oo dhammaystiran. waxaana muhiim ah inaad macluumaadkaaga ku qorto English amba si ay ugu qoran yihiin baasaboorkaaga amba dokumentigaaga. waxaa muhiim oo kale inaad ogaatid barnaamijkan intaad buuxinayso ee aad wax ku qorayso ee aad magacaaga iyo
halkaad ku dhalatay iyo halkaad degan tahay iyo waxyaalahaas aad ugu buuxinayso waxaa muhiima inaad ogaato inaad haysato 30 daqiiqo oo keliya ata oo 30 daqiiqo hadday dhaafto barnaamijkani si automatically ayuu isku xidhayaa. sidoo kale haddii aad intaad buuxiso aad mar labaad ku celiso aad mar labaad qorto waxaa isbaabinaya amba ismasaxaya kii hore aad xitaa buuxisay. meelooyinkan kulli way iska cad yihiin magacaaga iyo magaca aabaha iyo magaca awowga markaad soo qorto halka waxaad ku qoraysaa xilligaad dhalatay haddii ay tahay 1 bisha waxaad ka horreysiinaysaa 0 oo waxaad qoraysaa 01 maalintuna waa sidaas la mid ah sanadka aad dhalatay ayaad sidoo kale ku buuxinaysaa halkan. inta markaad soo qorto waxaad halkan ku qoraysaa oo aad halkan ku buuxinaysaa magaaladaad ku dhalatay ayaad halkan ku buuxinaysaa. sidoo kale halkan waxaad ku buuxinaysaa dalka aad ku dhalatay haddii aanu ahayn Soomaaliya waxaad gelinaysaa dalkaasi aad ku dhalatay. halkan kalena haddii wadankaad joogto laga ogol yahay lottery-ga waxaad dooranaysaa yes, haddii aan laga ogolayna waxaad dooranaysaa no. haddii aad ku sugan tahay Africa iyo wadamada Asia waxaad dooranaysaa yes oo wuxuu ka mid yahay barnaamijkan wadamada laga ogol yahay qaaradaasi. halkan kalena waxaad ku qoraysaa sawirka sifooyinkii aynu soo sheegnay leh oo aad ku diiwaan gelinaysaa amba aad gelinaysaa oo aad ka soo dooranaysaa mobilkaaga mid diyaarsan aad soo gashay oo footada intaad tagtay aad tiri sawirka lottery-gan doonaya oo 600 times 600 pixels. halkan wixii aad rabto ayaad gelin kartaa magacaaga magaaladaada. halka labaadna waxaad ku qoraysaa address linkaaga oo hal magaalada degan tahay halkuu maro country-ga arrimahaas ayaad ku qori kartaa. magaaladaada iyo dalkaaga dad ku qorto waa caadi. mid kasta xagga sare waxa kaga qoran waxa lagu qorayo yani town magaalada halkaad ku dhalatay maaragtay haddii laga doonayo addresska wadada uu gurigaagu maro halka uu gurigaagu maro barta uu ku yaalo magaalada uu ku yaalo townka uu ku yaalo xaafadda uu ku yaalo umurahaas ku buuxinaysaa. halkan kalena waxaad ku buuxinaysaa lambarkaaga lambarkaad hadda wadato oo aad ka horreysiinayso furaha dalka aad joogto ayaad ku qoraysaa. emailka ayaad halkan kalena ku buuxinaysaa. waxaa xusid mudan emailka aad ku buuxisay halkan aad geliso in hadhow tolo haddii lagu doorto lagugu soo dirayo macluumaadka dhammaan looga baahan yahay iyo ballamaha lagu sameynayo. halkan kalena waxaad ku qoraysaa shahaadadaad haysato. haddaad shahaado primary aad haysato waad ku qoraysaa. sidoo kale haddii aad haysato shahaado secondary ah waad qoraysaa. haddii shahaadada secondary-ga aad wadato aad ka baxday aad dhigato jaamacadna iyadana waad ka dooranaysaa. shahaadooyin fara badan baa halka ku qoran oo kala duwan. shahaadooyinkaad haysato ayaad ku qoraysaa. haddii aadan wax shahaado haysan oo waxbaba aadan dhigan yani shahaadada primary-ga oo iska fudud oo aad farsamaysan karto haddii lagu doorto ayaad ku qoraysaa. waxa muhiim ah in macluumaadka ku qoran inay iswaafaqaan hadhow tolema haddii lagu doorto oo ay kala duwanaadaan waxay noqon kartaa mid aad ku fashilanto iyadoo lagu doortayba. halkan kalena waxaad ku qoraysaa guurkaaga inaad soo guursatay iyo inaadan soo guursan. bartanna waxaad ku qoraysaa caruurtaadu intay yihiin haddii aad wax dhashay iyo haddii aadan waxba dhalinba 0 baad ku qori. haddaad dhashay haddaadan waxba dhalinna waxaad ku qoraysaa haddaad wax dhashayna tirada caruurtaada 2 caruur 3 caruur hadba wixii aad dhashay ayaad ku qoraysaa. inta kadib submit baad odhanaysaa. wuxuu ku siinayaa form uu ku qoran yahay macluumaadkaagu kaas oo la rabo inaad tijaabiso. haddii ay wax ka khaldan yihiin xagga sare ayuu kugu soo qorayaa oo waxa uu ku sheegayaa oo ku oranayaa waxba qaldan ee hoos u dhaadhac. markaad inta ayada qortay aad submit u dirto waad buuxisay oo waa ka halka sare kugu soo qoray success yani waad guuleysatay. warqadda waxa muhiim ah inaad screenshot ka qaadato oo waxa weeyaan halka aan imika calaamadiyay confirmation number ay ku qoran tahay. waxa muhiim ah inaad hadhow tole marka la soo dhajiyo natiijada aad ka ogaato haddii cid ay ku buuxisayna waxaad odhanaysaa lambarkaas ii soo dir macluumaadkan iyo warqadan. marka waxa muhiim ah inaad screenshot ka qaadato oo aad haysato amba lambarkaasi aad waxa weeyaan markaasi sawirato aad screenshot ka qaadato. haddii uu ka lumo
lambarkan amba warqadani hadhow tole hadday kaa lunto waadan screensheetka aad ku qaadatay haddii lagu doorto waxaad ka ogaanaysaa ma jirto. aad iyo aad baad u mahadsantahay haddaad halkan soo gaadhay. ha ilaawi inaad u sheergarayso qof u baahan barnaamijkan iyo macluumaadkan inuu ogaado. xagga hoose waxaan dhigayaa descriptionka aba commentiga ugu horeeya ciwaanka laga gelayo website-ka rasmiga ah ee dowladda Mareykanka. sidaa iyo nabadgelyo.